horta mahad kastoo timaado allah iska leh mid koobaad mid labaad mid saddexaad mid kastaba allah iska leh ilaahay aan ku mahadinaynaa dadka walaalaha noo yimiday oo noogu yimiday gurmadka oo galgaduud ka yimiday boqolkiiba boqol aan u mahad celinaynaa annaga oo ah dad islaam ah oo ahal ah oo walaala aan isku nahay haddana aan isku nahay cadow oo cadowgaagnu oo mid yahay inaan iska kaashanno ayaad noogu timideen waan idiin mahad celinaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa 114 qur'aanka cadadiisa walaalayaal soo dhawaada waxaan rajaynaynaa marka haddaan isu nimiday hiiraan galgaduud shabeellada dhexe galmudug meel kastaba haddaan isu nimiday dadku waxa waaye xooggiisa markuu mideeyo oo cadowgiisa ka guulaysan karaa waxaan rajaynaynaa marka cadowgaana inaynu ka guulaysano biidnillaahi kariim soo dhawaada walaalayaal boqolkiiba boqol soo dhawaada isku cadabaan nahay isku aragtina waan nahay dad kitaabku ka dhaxeeyaan nahay niman marka ku soo duulay dadka islaamka oo muslim ah waad ogtihiin mid bariisahay 1600 iyo maasaada ay sooba ay ku laayeen wadadkaas muxuu yahay dadka lama dhihi karo waa dad islaam ah lama dhihi karo bilaadan xataa lama dhihi karo sharci gaalay sharci islaam mid quraan ma leh kow yaa sheegay dunida weli dad islaam ah oo muslina in la aruuriyo baalsiin iyo loo keeno la gubo oo ilmo saqiiraa ku jiraan oo dumar iyo rag iyo saqiir iyo kabiir leh dad lagu qabto walaalayaal dadkaas maan hortaagan waxaan rabnaa inaan macalka dadkaas aan gacanta isla saarno xoogayna haddaan bilaynana waa iska dhici karnaa ilaahayna waa loo kaalmaynayaa nimankaas waa niman la og yahay la arkay waxay wataan maaragtay waxay kitaabka wataan ku madaniyo oo hayna ma ahan ku islaamna ma ahan nimankaas markii waa inaan gacanta isla saarno waana mahadsantiin waa idin soo dhaweynayna wabillahi tawfiiq